marka taa hadaanu aniga wiilkiiga maarmeen do hooyadii guri ha u kirey waan soo booqana hooyadii bay noqotay do hooyadii guriga ibtila kuma hooyadii way ku noolaanaysaa waan ogolay kamana fasax qaadanayaan hooyadii in hooyadii guriga ku noolaato uma marayo iikaadi inaka adiga ku qaba uma fasax qaadasid in hooyada ay guriga timaado laakiin waxaad rabtaa inuu adiga fasax kaaga qaaday oo ogolaansho hooyadii ana guriga ka masuula laakiin hooyaday inta doonta ku nool walaalahay baa ku noolaanay isaga fasax ugama qaaday kamana masuul aha reerkayga wixii imanaya wixii ka baxaya waay waxaana jeceshahay inuu ku ogolaansho hooyadii kaaga qaado hooyadii walaalkii haduu imanay maxay ku kala duwan yihiin hooyada iyo isaga hooyadii furitaan baa sabab saaba waxa muhiim ah in loo daayo inanta guriga masuulka ka tahay imika odayaashan fadhiya waxaad moodaa xogeyn hablaha yara cadaadinayeen oo aragtidooda la yaabaneen ma ahayn aragtida qofka binaadamka la yaabo raygu qabo rigiisa loo tixgeliyo haduu ku qalday haduu ku saxsay marka waa in adna rayga la wadaagto marka kiisa xaw ku qaadanaysa isaga u tala الجنات تحت أقدام الأمهات برسوله يجوب ما شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام عقا هو يدي بجنة دقيقة لكن عاد بدي نمود ويدي دي ما تفرسها صدر هدي تجيان قبل هو يدي هالك قاعد لا فوي كان جيلو خدني كيف بعزها ضد السي ويلا شيء قبلها هي دحتال ومسلم بقى مسوا قالوا ومسلمين صومالية اوكي نظامك gurigooda maamula ama guriga ay ku hagaan ama ay isku guursadeen ma shareeca islaam ba mise waa mid gaalo waa shareecada islaamka waana dad muslimiin ah warku waa cad yahay marka haddaan labada jawaabood helay in iyaguna muslimiin yihiin guriga sharcigii lagu dhisayna uu ahaa ka islaamka iyaguna gurigooda inay diin islaam ku maamulaan inta haddaan jawaabteeda helay jawaabta su'aasha jawaabteeda way caddahay guriga hooyadu waa hooyadii guriga aabuhuna waa aabihii guriga mid walbana xuquuq buu leeyahay ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وآيات قرآن دمركو حقوق ذا إليهن حقوق ذا إليهن مثل مذا لقوليه ننكي حقوق ذو ليه مثل مذا حاس كينا لاذا رقصه هل درجة لا ديريهن بوليد أو أن لوسنين darajadaasi maxay tahay waa darajada qawaamada waa guriga iyo hoggaankiisa waa mid aayada kale Ilaahay ku sheegay ar-rijaalu qawwamuna 'ala an-nisaa isaga ay tahay guriga mas'uulka koobaad ka ah isaga ay tahay inay reerkiisa iyo xaaskiisa xataa uu toosiyo marka gurigan ninka mas'uulka ah isaga odayka ah hooyaduna waa hooyadii guriga wixii arrimay ku saabsan wada tashi wa amruhum shura baynahum laakiin go'aanka gabadhamaysta ayaa leh marka la tashado odayga guriga iska leh laba awoodood oo siman ma aha hadday laba awoodood oo siman noqon lahaayeen waa warka gaalada iyo sharciga gaalada gurigaasi ma dhisnaan karo waa ka Ilaahay quraanka ku sheegay shay kasta oo jira laba awoodood oo siman hadduu ka dhaxeeyo ma jiri karo law kana fiihima aalihatun illa Allah la fasadata samadan iyo dhulkani hal ilaah inuu leeyahay maamulo hal rabbi waxa ku tusaya hagaagsanidii isku toosnidii nidaamkii ay weligood lagu arkay ku socdaan hal jiha maamusha hadday laba jiho iyo ka badan maamuli lahaayeen way fasaadi lahaayeen suurtagal ma tahay hadda dawladdan ama dawladaha laba madaxweyne isku awooda dawlad ma maamuli karaan shirkad laba manager oo isku awooda ma maamuli karaan maya wax badiyo iska cad waay guriga
ninka oday ka ah hooyaduna waa marwo muxtaramaho waa hooyadii guriga hadday timaado su-aasha qaraabada hadday timaado qaraabada dhanka gabadha ka socotana guriga xuquuq bay ku leedahay gaar ahaan hadday waalidka yihiin qaraabada xagga ninka ka socotana guriga xuquuq bay ku leeyihiin gaar ahaan hadday waalid yihiin ma jirto wax la yidhaahdo gabadhuna qaraabadeeda xor weeyaan oo guriga firiga iyo guriga waa u fasaxayay ninka qaraabadiisuna gaar ahaan hooyadii baa la magacaabay guriga marka la keenayo waa in xaaska idan la weydiisto ya oo hadday diidana maamada meel kale loo raadiyo ayu sharcin hada waa sharcigee waa sharciga kufriga iyo gaalnimada waay sharci kufri waay sharci islaam ma aha hooyada maamada guriga iskale ninkeeda hooyadii iyo aabihii gurigeeda idan weydiisan maayaan lianna ninkeedaba iyagaa iskale nabigeenu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi anta wamaaluka liabiika nin buu la hadlayay wuxuu ku yidhi adiga iyo xoolahaagaba aabbahabaa idin leh hooyadu waa kasii xaq weyn tahay ya haddiiba ninkaagii la yeeshay oo hooyadii leedahay ya ninkaaga ciddii lahayd see baa guri loogu diidi isagii baaba la yeeshaye waa midda labaadee haddii adiga laf ahaantaada hooyada ah waalidkii ninkan dhalay inta lagu afgaran waayo ay ku yidhaahdaan waryaa middani nama anfacaysee fur waa lagu eryi marka hooyaan guri u diidi idan ha lay weydiisto guri kale ha loo kireeyo ay sharcin hada ay sharcin hada qaraabo goysnimo intaa leeg waxa laga hadlay haddana waa waalid waxa laga hadlo haddana waa waalid waaye qaraabo kale xataa hadday ahaan lahayd bacdu shari ahwan way isdhaami lahayd laakiin waalidkiibaa guriga loo diidiyo idan ha weydiisteen waa thaqaafo iyo dhaqan inoo yimid oo soo guuray waaye waa dhaqan la soo minguuriyey oo aan ahayn kii islaamka aanan ahayn kii bulshadeennu ay lahaan jirtay war miyaynu lahaan jirnay ma dhaqan waxaan lahaan jirnay hooyo meel kale ha loo raadiyo la yidhaah maya ama xagga xaaska ha ka timaado ama xagga ninka ha ka timaado hooyo gogasha ugu wanaagsan baa loo dhigaa cuntada ugu wanaagsan baa la siiyaa guriga idan ma weydiisato iyadaa iskale aabba waa sidoo kale ama dhanka xaaska ha ka yimaado ama dhanka ninka ha ka yimaado waalid baa idan weydiisanee adari dhaafi meel kale u kiree naagta sidaa qabtay in la eriyo waayo in la fiijiyo waayo taasi naag maaha xaas maaha haddayna waalidkiiba ogolayn oy gurigiiba ka sheemayso u diidayso xaaskaasi muxuu yahay ya malaha naag caddaan aad qabtaan naaga yurubiyaana maad soo guursateen gabadhaas soomaali maahaan u malaynay waxaasi dhaqan maaha la dhaqankeenna islaamkana maaha walaa dhaqan diinteenna ka soo jeedana maaha waalidku madaxuu saaran yahay xaqa ilaahay siiye waa xaqiisa midka ku xiga ma garata xoolahaaga waalidkaabaa iska leh alimaamu axmed caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay xataa inuu baahidiisa xoolahaaga ka qaato keliya meehe xoolahaaga intuu qabto wax ka sadaqaysan karaa waalidku addoontaada kuu joogta buu waalidkaagu xorayn karaa isagoon idanku weydiisanay alimaamu axmed fii kitaab ilwarac buu saa ku leeyahay marka waa yaabay gabdhihii iyo wiilashii baa doodaya boqolyaha tictokka ku jira un habeen dhaweyd ka hadlayn ma kuwaasaa doodaasi dhex taalla hade kuwaasi waxaan u malaynaya waxaan ugu cudur daaraynaa islaamba kama warhayaanba dhaqan islaamna intooda badan kama warhayaan mushkilada haysata waxa weeye doodahan waxaa keenaya thaqaafada iyo dhaqamo kalea lasoo maqlay lasoo arkay markaasaa waxa weye guryihii islaamka la doonaya in lagu maamulo wax foolxun waaye nacam
doodahan waa doodo la soo minguurinaya wey telefishin ha ka dambeeyo idaacadi ha ka dambayso wax la soo minguuriyay ummado kale laga soo qaaday oo dood u dhex taalo Soomaa markaasaa dhalinyaradii muslimka la dhex keenoo la yidhi doodan ka dooda war maxaan ka doodnaa wax jiraba ma ahe dhaqankanagiina ma aha diintanaduna ma qabto magaalaan nahay markaan ka doodayno hooyo iyo aabbo lama soo dhaweyn karee bannaanka ha la geeyo magaalaan nahay mise muslim baan nahay su-aashaa in la weydiiye waay telefishinka waxaa keenay ummadda dhex dhigayna waxaa loo baahan in la yidhaahdo war magaalaad doodsiinaysaan mise muslim baad doodsiinaysaan aslan ba su-aashaasi inay timaadaa khalad ah wallahu aclam